asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walbo iminkaad inaga dhegeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha haweenka oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan raadiyaha midnimo mideynta bulshada. dhegeystayaal barnaamijka arrimaha haweenka ayaa waxaanu kusoo qaadanaa wax walbo oo qoseeya haweenka inagoo islamarkaana barnaamijka ay nagala qeyb qaadanayaan martiyo kala duwan. barnaamijkana dhegeystayaal waxaa hawada idiin soo marinaysa anigoo ah Sumaya Nuur Locoge. barnaamijkeena haweenka isbuucani waxaanu ku qaadanaynaa haweenka iyo weliba qodbasirada. barnaamijkana waxaa igala qeyb qaadani doonta hadduu eebeedmo Najma Axmed Xuseen oo ah macalimad islamarkaana ah ganacsato. Najma, kusoo dhawo barnaamijka. aad baan u dhawaa walaala, aad baan u dhawaa. waa mahadsantahay. waan gartay, aad iyo aad u mahadsan tahay Najmo. barnaamijkeena maanta waxa uu ku saleysan yahay haweenka iyo qodbasirada. horta adiga inoo sheegaya qodbasiradu horta waa maxay, adigoo faahfaahin inaga siinaya guurkan qarsoonida ahi. soo dhawaa baay Sumaya. qodbasirada kelimada waa maxay? qodbasiro marka la qeexayo Soomaali ahaan waxaa la dhahaa horta waa meher xad oo waa guur qarsoodi ah. guurku wuxuu dhex maraa gabar iyo wiil, sax? saas ay tahayba waa labada qof waxay ku heshiinayaan inay kala dhuntaan ama ka qarsadaan weliga gabadha, maadaama isaga idanka laga qaadanayay. diinta islaamku tahay inuu idanka gabadha weligeeda bixiyo. waxaa lagala dhuumanayaa weligi, waxaa la tegayaa ama magaalo kale la tago ama si kale hala yeela ama wadaad meel fadhiyaa loo tago in guurkii la qarsado. halkaasay kelmada meher xaddu ka timaada ama qodbasirada. marka qodbasiro waxaynu u naqaanaa guur kasta oon ka qeybgelin ama ogolaansho ku iman weligii gabadha. sidaa waan gartay. aad iyo aad u mahadsan tahay Najma. marka hore qodbasiradu horta ma xalaal baa mise waa xaaraan dhanka diinta haddii aanu eegno? nabahay soo dhawow. qodbasirada diinta islaam wax kasta marka la qaadayo waxa loo mara horta in waxa kan xagga diinta uu ansax ka yahay inuusan ansax ka ahayn, soo maaha? hadduu ansax yahay in wadadiisa la qaado, hadduusan ansaxayna laga haro. waan gartay. qodbasirada marka la joogo dadka horta laba isku khaldaanin. marka fiqiga loo laabanayo laba shay baa jira. mid waxaa la dhahaa nikaaxu sirri, midna waxaa la dhahaa khudba sirriya. nikaaxu sirriga marka waxaa la dhahaa waa iyadoo gabadha weligeeda laga doonayo makhraatiga joogo weliga bixinayo, haddana laysla ogay in meherkaa la qariyo. taa waxaa la nikaaxu sirri. waxay ku khaldaan marka khudbasirada oo iyadoo laga wado khudba oo nikaaxa iyo sirri oo qarsoon ah oo la dhaho meher xad. tanayna marka fiirinayna diinta islaamku waxay ka qabto. qodbasirada xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa wuxuu ahaa laa nikaaxa ilaa bilwaliy. nikaax ma jiro ilaa gabadha weligeeda laga doono, ama guurku ma ansaxayo haddii aanu weli lahayn. shuruud baa jirta loo maro zawaajka ama guurka, shuruud baa jira loo maro. waxaa ka mid ah inuu nikaax gabadha weligeedu u ogolaado. marka weligu dhowr waxa waa noqonayaa. kow, in gabadha aabiheeda bixiyo. hadduusan aabuhu joogin la dhaho idaa faqida al-ab, waxaa bixinaya aljad oo wuxuu yahay awoowaha. haddii awooguhu joogay oo idaa faqida aljad dhacdo waxaa bixinaya al-akh walaalka. tanaasulaasa macnaha hoos baa lagu degaya. qofku waa inuu gabadhu leedahay ehel weli bixiya. sidaa darteed baa xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagu dhahay laa nikaaxa ilaa bilwaliy. nikaaxu ma ansaxo hadduusan weli lahayn. xadiis kalena waa jiray caaisha kasoo warisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ahaa ay imra'atin nakaxat bicadami idani waliyaha ama biqayri idani waliyaha. haweeney kasta oo guursata ogolaasho la-aan weligeeda fanikaaxuhaa baadil baadil baadil. rasuulka sallallahu alayhi wasallam 3 jeer buu wuxuu dhahay gabar kasta oo guursata yani ogolaasho la-aan weligeeda nikaaxeedu waxba kama jiro, waxba kama jiro, waxba kama jiro. saa darteed taasna waa isla qaadanay. qodbasiradu waa xaaraan. waan gartay. aad iyo aad u mahadsan tahay Najmo. gaar ahaan haddii aan eegno dhanka gabdhaha dhalinyarada ah, horta run ahaantii maxaa ku kalifay in gabdhahani ay sameeyaan qodbasirada? abaayoy dhowr xaaladood waa dhihi karnaa. waan gartay. kow, inay gabadhu ku jirto horta xaalad
reerku guurka u ogolaanayn waxaa jira gabadhu xaalad ay mararka qaarkood teenager tahay oo waxa waaye qalbiga laga xadi karo loo dhihi karo waa isguursano haddaa reerka u sheegto inaa isguursano ama waxa lagu dhahaya waa yar tahay heer aad ku guursano aan gaarin oo isdhehda laguma ogolaanayo inay waxbarasho ku jirto oo qofka sanawi dhiganayo secondary school ku jiro ama uu waxa weeye hadduu rabo jaamacadda bilaaba isdhahdo haddaa reerka saacadda ku tiradooyo ama aabo weliba soo hel isguursanayna familka qaarkood isku wada mid maa inay dhahaan nin waxa weeye waxbarasha ku jirtaa dhamayso markaad dhamaysato guurso ama istirahado bulshada dhexdeeda lagu dhahaya iblaayo waxbarasheeda wada ama dugsi hoose tarayba dhiga tahay heeray ku guursato maba gaarin yani wacyiga bulshada inay ka baqayso isdhahdo qaso laba waxaa kaloo la dhihi karaa waxaa laga yaabaa hadda dhalinyarada wadanka joogta 70% waxaa la dhahaa waa shaqo la-aan ama waxa weeye unemployment waxa la dhaha ku jira waxaa laga yaabaa guurku waxa weeye mas-uuliyad culus weeye marka wiilku marka uu shaqo la-aan yahay haddana labada qof isjeclaadeen israbaan hadday ku dhahdo hooye hebel baa isguursanaynaa ama wiilkaas ay leeyihiin soomaalidu kow waxaa lagaga bilaabaya maxaa ka shaqaysaa hooyo inankii dhammaan gabadha reerka soo doontee mas-uuliyadda qaadi lahaa haddii uu dhao shaqalaan baan aha waxaa la dhahaya hadhow waxa weye gabadhan waxa weye mas-uuliyaddaada ma qaadi karta daadanba shaqaynayn oo sida caadiga wacyigeenu joogno marka wuxuu isleeyahay ama iyadu sideeda gabadhu waxa weeye intii lagu dhihi lahaa hadhow waxa weye wiilku muxuu ka shaqeeyaa iyo wiil aan shaqayn u guursan ka dhacay ninka hortaas isku filnaado maadaama mas-uuliyad qaadayo ila baqiyo waxay isleedahay waxa waaye qarso waxaa kaloo dhici karta wakti baynu ku jirnaa waxa weye soomaali cultureka xaalad waxa weye dhaqanka soomaalidu uu qabiilku aad saameyn ugu leeyahay wax walba ka uga badan yahay waxaa laga yaabaa gabadha reerkan wiil ay jeclaanayso ama isjeclaadeen ama xiriirku dhexmayo inay qabiil reerkan soomaalida ayba dhahaya aaminsan dhahaanin reer hebel ismaba geynaba yani inta kuma taan laakiin iyagaa kaljar ahaan u haystaa marka haddii dadkaas yani xoogaa la takoora wiilkaas yahay ama oo kaleeto ku dhahdo hooye wiil reer hebel aan isguursanayna horta waa isguursanayna waxa lagu dhaha yuu yahay horta wiilkaas isguursanayso waa kow first one baa lagaga bilaabay hooye waa reer hebel ismaba geyna reer hebel sida guursan kadha alla maanta dhintay gabadhayda reer hebel maba geysee sida guursan kadha marka xataa iyada reerka ka sokow saaxiibadeeda ay leedahay classmateska waxa weeye kuwa suuqa la joogo kuwa is arkaya waxay dhahayeen waaba ku xamanayeen heblaayo wuxuu guursaday nin reer hebela waxay isleedahay maadaama wiilkaan jeceshahay qabiilkiisana eerka iyo faamilka asxaabta kugu dhaleecaynayaan isagana waa qasan kadhaa xaaladahaas loo sabayn karaa markaa baayo waxaad leedahay oo aad ka dhawaajisay in labada qof oo isjecel islamarkaana doonayaan in ay wada noolaadaan soomaalina sidaan u nahay qabiilkii ayaa dib inoo dhigay oo waayihii horey qabiili waxaa lama eegi jirin laakiin waayahan dambe waxaan u malaynayaa in badana marka aad guursanayso lagu weydiinayo horta qofkani yuu yahay mise reer hebel markaad tirahdid lagu oranayo qofkaas isma galno mise isma guursano waan gartay bal iminka najmo haddii aan ka gudbo su-aashaasi dambo dhibaatooyin noocee ayaanu isdhihi karnaa ay la kulmi kartaa gabadha ku jirta mise guursato iyadoo weliba meherka qarsoon yahay waayo dhibaatooyinka ay la kulanta gabadha markay guurka ama meherka qarsato kow horta inuu wax way in lagu inkiro wiilkana isguursanayseen guurka official ma ahayn cidka ogeedna jirto adiga isagaa israacay iyo waxa waaye wakhtibaati beenaad waxa waaye nin meel fadhiya lagu geeyo wuu kusoo meheriy reerkiinu ma oga kale ma oga waxaa laga yaabaa beri kamaana uur baa kugu soo bixi karaa waxaa laga yaabaa marka uur kugu soo baxo ku dhaano maba dhalin biilmaha yaa dhalay wey qofkan waa bini aadan suu dhahaa ma ahaanayo marka kow gabdho badan baa jira marka hore ninku la qaato inuu waxa waaye iskargaraynayo xanaanaynayo isagu rabo iyo waxyaalaha uu ka dhaadhicinayo waa waxa weeye waxa hore oo isku soo xareeya soo maaha marka maadaama cidi kula ogeyn waxaana official ahayn aabaha iyo hooyada reerkiina aad ka qarsatay cawaaqib xumada koowaad ee ka dhalan karta waxaa ka mid a in ilmihii aad waxa weeye uurkiisa ay yeelato in nin kuguba inkaro kudhumaba dhalin baanu mana dhihi karto adaa dhalay sababtoo adaa xataa qaylasiyaa kula ogaa cidna kulama ogeyn adaa qarsaday waan gartay marka taas waa qow laba waxaan dhihi karnaa in waxa weeye gabadha faamilkeeda dayriyaan wax badan baan aragnay reerka gabadha guriga u joogtay isdhahaayeen waxa weye beri ka maalin gabadhiina si fiican baa lagaaga soo doonaya lagaaga dhisaya
markay wiil waxa waaye meher qarsadaan ama guur hoose galaanin beri ka maalin hooyadu banaan ka soo noqosho ama binaanad banaan warka ma aqoonsanaanayo la maqlo reer ku dhahan gabadha yar hankan kaama filay bayna wiil qarsato oo waxa way guriga noo joogto oo waxa way wiil ku qarsan yahay ama reer wiilka ku soo marxabay banaanka u saaran hatta hadii waxa way qaar baa jira marka uurku ku soo baxay leeyahay banaanka anagu ma naga dhalay soo waxa way nagama aan door bidinaan wiil guursato haddana qarsato waxa kugu filnaado banaanka dhigaya kaasa waxa way rafaadka silaca bimahaasi banaanka ku dhawaysa maalinba meel bay la degaysa waxa way dhibaatooyin badan baa taasna ka keeni kartaa waan gartay waxa kale oo la dhahaa ugu dhaleeceeyaa laftirkeeda inay bulshada ku dhaleesho dhahaan heblaayo meel uur bay qarsatay maadaama lagu ogay inuu uurka official ahayn qarsoon yahayna haddii uur kugu soo baxo inta aan waxa ku dhahaan heblaayo xisadaa wacalbisidaa uur bay leedahay waxa way ilma farafaysiga kuma oga waxa samaysay inkastoo ilmaha yarka oo uurka lagu leeyahay si kastoo waalidku ku keenaan isagu dambi kuma la waxaas waxaana la diinta islaamka marka loo fiirinayo ilmaha aabaha dhalay baa loogu abtirinaya haddana faamilkaagii iyo ehelkaagii dariskaaga waxa la darisku ayaalaha lagu dirsan midna ma oga inaad guurka qarsatay sidaa darteed way kuga eedaynayaan waxay dhahayaan ilmo xalaala ma sido aad iyo aad waan gartay waayahan dambe waxaa soo badanaya run ahaantii guurka qarsoon kuwaasi oo weliba ay aad ugu tiro badan yihiin dhalinteena haddaba maxaa sababa ayaanu is oran karnaa abaayo su-aashaas waxaan dhihi karnaa kow meherkii oo qaali laga dhigay aad iyo aad waxa waaye diinta islaamku waxa waaye waxa la dhahaa guurku waa in la fududeeyaa حديث باجر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من استطاع منكم الباء فليتزوج قفك أولاد إنه جورسه حجورسه marka waqtigan la joogo guurkii rag awoodayeen waxa weeye keenu naqaan maaha gabadh waxay rabtaa inay waxa weeye saaxiibteeda 500 gram lagu meheriyay barteeda gasho aysan ka hooseyn waxay mid 200 gram lagu meheriyay inay booskeeda gasho aysan ka hooseyn haddana ninku meherka inta leeg ma hayo hadduusan awoodina waxay noqon inuu kugu sasabo inuu ku dhawaan isku qarsano aadi aad labo waxa dhigi karnaa shaqo la'aan wadanka inuu ku nool waxa dhalinyarada shaqo la'aan baa ka jirta ninku shaqo fiican ma jirto gabadhu wiilku markuu soo dayanaa wataan ku sheeko waxa la dhahay wiilku muxuu ka shaqeeyaa maadaama uu waxba ka shaqeynaa hadhow afuu ku dhaw waxba kama shaqeey gabadhiina waa rabaa ma jirtay Soomaalida yeelmayse waxay noqonaysaa inuu gabadhi ku dhaw waxa way inta shaqeysanayna xabiib waxa waaye inuu si guursan oo meher qarsoodi waxa way taas ku dhaco saddex in guurkii la adkeeyo aadiya gabdhihii baa guurka ka dhigan qaali waxa la rabaa in xaflada lagu dhigto hool waaweyn waxa weeye kuwa kale la bareejeeyo waxa weeye in waxa weeye xaalad usan wiilkan awoodin way gabadhu galiso boos usan waxa weeye hawshaas usan gali karin waan gartay sida darteed maadaama dhaqaale yari jirto maadaama xafladaha waaweyn dhigi karin maadaama meherkan qaaliga waxa weeye awoodi karin guurkina ku adkaaday haddana u baahan yahay waxay kalifaysaa inuu leeyahay soo bilaabo uu qasadka waan gartay waa hagaag dhageystayaal aad iyo aad u mahadsan tahay taasina waxa weeyaan Najmo Axmed Xuseen oo nagala qayb qaadanayso barnaamijka arrimaha haweenka kaasi waliba maalin walba oo Arbaca Talaado aan yiraahday garhali noqdo si toos ah uga baxraadiyaha midnimo mideynta bulshada barnaamijka arrimaha haweenka ayaan dhageystayaal waxaan ku soo qaadanaa wax walba oo qoseeya arrimaha haweenka isla markaana maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuceena uu yahay haweenka iyo waliba qodbasirada haatan hadii aan u soo gudbo dhanka iyo su'aalaha waxaa jiraan rag qaar ah oo haysto dhaqaalo isla markaana awoodo guur aan qarsooni ahayn balse jecel in ay gabadha ay qodbasireystaan haddaba maxaa ku kalifay ayaanu is oran karnaa raggaani abaay soo dhawow laba qodob waa dhihi karnaa maadaama ninkii dhaqaale haysto uu guursan karo guur waxay gabadha reerkeeda uu ka doonan karo oo waxa weeye official gabadhu dhigi karo inuu ka doorbido inuu qariyo asagoo dhaqaale haysto waxa keeni kara kow inuu ku reer leeyahay waxa laga yaabaa wiilkan ama ninkan in qabo gabar weyn oo waxa waaye reer ciyaal iyo dhowr ciyaal u joogaani haddana uu rabo tuyar waxa weeye inuu guursado wuxuu ka baqay hadduu gabadha labaad guursado oo iyana si official u guursado inay tiig weynaad maseerto in waxa waaye gabadhan kale laftirkeeda la guursanayo haddii la dhaho reer horaan leeyahay
oo maadaama wixii la cadaynayo reer hore leeyahay ogaato in laftirka dhaamo nin reer lama rabo marka waxa ku kalifaysa inuu tan weyn uusan ogaan inuu reer yeeshay tan yarin aysan u diidin maadaama yarata aysan rabin inuu dhow wixii ba qariyaba uu qodbasirada galo sidoo kale waa jiraan rag aan laftirkoodu qodbasiraas jecel iyagoo lacag haysta qodbasira sameynaa sababtoo waxay rabaan ilaa 3 inay qodbasira ku qaamidooda magaalada geeskeeda ka degantahay ma dee rabaan magaalooyinka kala degan yihiin biilkoodii lacagtooda waa awoodaan laakiin dumarkaas isma oga sababtoo wuxuu diidaya buuqaa iyo mareerka iyo yaraatar iyo mid kale xagga madhe iyo waadu shiiyey isleeyahay waxa weeye kana ku howlroo marka saari badanaa u galaan iyagoo lacag haysta inay waxa weeye baan dhihi karnaa guur qarsoodii galaan waan gartay caruurta ku dhalatay guurka qarsooniga ah dhibaato nooca ayaan is oran karnaa ay la kulmi karaan abaay guurka horta marka la leeyahay usra la asaasay ama qoys waxa la rabaa hooyo iyo aabo inay mas'uuliyadda qaadaan ilmaha ka dhalanaya inuu waxa weeye xanaano iyo waxa weeye wax fiican wax barasho iyo aabiyo hooyo wada joogay waxa helo maadaama guurka qarsoodi yahay waxa laga yaabaa gabadhan markuu ilmaha uurkiisa qaadinayo ninku furo waxa laga yaabaa inuu ku dayriyo sidaan day kugu soo sheegay marka hooyo iyo aabo wada jooga ilmihii ma helaayo korniin fiican ma helaayo maadaama labada awalba qarsoodi isku guursadeen waxa la dhahaa geedkii orod lagu fuula orod baa looga dayaa soo maaha maadaama qarsoodi isku guursadeen haddii furni yimaado ama isnac yimaado ama la kala tago ilmihii xanaano fiican ma helaayo oo hooyo iyo aabo wada jooga iyo naxariista uu heli lahaa ilmaha kaleeto oo hooyis adis wada jooga ma helaayo labo in labada famil oo gabadha iyo wiilka familkooda mid kamid ah reer labada reer kamid ah in ilmihii loo geeyo marka hooyo aabo qodbasirada la ogaado oo kala tagaani labada famil mid kamid ah ilmihii lagu xooro oo la dhaho haye wiilkiina dhalay ama gabadhiina dhashay oo waxa laga yaabaa badanaa waxa loo geeyaa ayeeyo ama maamo weyn oo garabta waa yeel weeye waxa weeye ilmahan keerkiis ma keergareen ka dhax xanaanadiisa ma awoodo laakiin waa ayeeyo oo way hayna way jeceshahay ilmaha wiilkadu ama gabadheedu si kasta loo xoriyadu waa haynaysaa laakiin ilmihii baa xanaano fiican helayn waxbarasho fiican ma helayo daryeel ma helayo waxa waaye hooyo aabo wada jooga ma helayo naxariista ilmaha kale oo hooyooyinkooda aabahooda wada joogaan isaga waxa waa ka maqan tahay booskaas waa waaye waan gartay bulshada saameyn nooce ayuu ku yeelan karaa ayaan isdhihi karnaa jiilka cusub ee hadda ay u arkaan wax fiican oo waayihii hore aan la sameyni jirin abaayo mas'uuliyad darro kow in mas'uuliyad darro timaado maadaama mas'uuliyadda guurka la qaaday oo waxa weeye reerka marka meel degan lagu ogyahay haddii xataa gabadha iyo wiilku isku dhacaaneen وwaxa way sidii quraanka ku olay waxa way in tabcati waxa ka min ahli yurida islaahi wafiq Allah baynahuma loo dhahay hadii waxa way heshiis rabaan eheliyada kamid ah qaybta kale kamid ah hada isugu yeero waxa way la dhaxgal lahaa iyaga guurkooda lama bogo waa qarsoon yahay sidaas furaan ilmahan uurka galay ama waxa way dhashay mas'uuliyad darra ku imanayso waxa way xanaano ma helay waxbarasho ma helay nolol fiican ma helay dayacaad ka imanaysa in nolosha isbedel ku yimaado gabadhi walba qabsas dhahdo maalintii maxaa ku geeyay maxaa waxa way waxaan isugu galeysay waxa way qaabkii nolosha socota waa ka duwanaanaysa laga yaabaa xataa badanaa gabdhaha meeradaha waxa waaye fanaanada fadhiyo oo qaarkood waxa way dharka banaan ku gadaan oo qaarkood meeradaha habeenka midnight-ka ka xiroonayaan si subaxay u yimaadaan waa badankooda qaar ilmahooda lagu xoorayo waxa way xaalado noocaas ku yimaadaysa ilmahooda ula hadama nolosha ilmaha marka mas'uuliyad darro waxa way dayacaad badan nolosha isbedel ku yimaado waxaas waa laga dhaxlaa waan gartay najmo badanaa waxaad arki kartaa haween badanaa dhalinyaro oo da'doodu u dhaxayso 20 iyo 26 meelaha oo waxaad arki kartaa kulligood la wada furay dhibaatooyinka ay la kulmayaan waa dhanka iyo weliba qodbasiradu saameynta ay ku yeelatay liana waxaad arki kartaa gabadhii oo rafaadsan oo banaanka dharku iibinayso isla markaana ninkiina uu ilmaha ku dayacay marka maxaanu isdhihi karnaa horta qodbasiradu waanu garanay laakiin furiinkan maxaa keenay furiinkan waxa keenay wadaada ku sheegay waxa way geedkii orod lagu fulo orod baa looga dagaa kow marka hore la isguusanaya waxa weeye mas'uuliyad caadi loo bareerin oo ninkan u bareerin baba gabadha marka ninka gabadha badana waxa la gabadhu waa iska masaakiin xataa hadii PhD holder tahay waxa way ninku qiyaamayn karaa kasakow marka mas'uuliyad caadi wiilkan uma bareerin awal bura wixiisa waxa way laga yaabaa inuu baahi kala gudanayo waxa laga yaabaa inuu
isdhahay waxaan dhowr beriba kugu qaadamisa qarsoodi ku wado haddana markii isfaham waa dhaco oo hadha waxa waaye gabadh waxyaalo badan aysan filay ku yimaadaanin isku dhacayaan isna wax lama aha guurkii maadaama uu qarash badan gelin maadaama uusan faamiligiis ogeyn maadaama mas-uuliyad caada qaaday maadaama waxaan awalba waxa waaye wax yar fudud la ahaayeen wuu furayaa dhibba lama ahaba marka ugu horeysa weydiisa fartuu ka saari sababtoo waxa waaye marka hore waxa ku heshiisan waxaan ilaahi subxana watacaala raalli ka ahayn marka taasaan dhihi karnaa waan gartay adi ahaan najmo waxaad inoo sheegtay in aad tahay macalimad noloshaada weli ma la kulantay haweeney ay ku dhacday arrintani oo ah guurka qarsooniga ah islamarkaana maxaad kula talisay waan arkaa baa wax badan baa weliba la arkaa qofka bulshada ku dhex jiraayo wax badan buu arkaa waxa waaye gabdho badan baa la kulmo qaarkood ku dhahayaan beriga form 2 ahaano ardayada oon gurigayga joogaan nolol fiican haysta baa nin isjeclaanay waa beher qarsaday banaanka la ii saaray xataa waxa weeye ilmahayga baa la daalaa dhacay waxa weeye isaanaa ku koriyay haddii aan joogi lahaa maanta booska aan hadda joogo haddaan caqligaan lahaan lahaa kuma dhaceen oo ka shalaynayo oo qoomamo iyo nadmi dareemaya inay ka xumaadeen inay ku dhacaan guur qarsoodiya haddana waxaa kula taliyaa inay waxa waaye maadaama wixii dhaceen qadar allah wamaa shaa facal baa la dhahaa waxa waaye wax tagay lama soo celin karo inay hore u socdaan waxa waaye haddii ubad meesha yaal ilmaha dhexda u xiratay korsato si kastay ilmaheeda waxa waaye sacrifice ugu bixin kardha nolol lagu raadin kardha u samayso dhigeeda iyo dadka ay aragto inay waxaana kale ku dhacayaan laftirkeedu kala talisay tiraadaanaaba example life ayni ah oo waxa waaye ku dhicinin aniga dhibtaan arkay marka wax badan baa aragnay wax badanna waa ka waaninin waan gartay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ma is oran kartaa waalidiinta wacyigelin la-aanta gabdhahooda aan la yeelan mise ma isdhihi kartaa qeyb bay ka tahay horta taasina qodbasiradu absolutely waalidku qayb muhiima bay ka inay ilmuhu qodbasira ku dhaco weliba gabdhaha marka loo fiiriyo maadaama barnaamijku haweenka yahay hooyada waxaa looga baahan yahay kow inay gabadheeda saaxiib la tahay oo waxa waaye weliba markay ilmuhu gabadhu ku jirto xaaladda qaangaarka ama teenagerka waxa waaye waxyaale aan ku jiri jirin bay lasoo baxaysaa caaro waxa waaye inay waxay rabto loo sameeyo waxa waaye inay asxaab yeelato banaanka u baxdo waxa waaye inay waxyaalo badan hesho hadday marku gabadhu hooyadu haddaysan gabadheeda markaa saaxiib dhow la noqon oo waxa weeye waxa aan u sheegin oo waxa fiican waxa weeye waxa aan ka digtoon oo oran oo wadada saxda tusin waxay yeelanaysaa saaxiibo sida raggaas oo kale oo banaanka jooga oo waxyaalaha iyadu dhibaatada ay tabanayso dhagaysanayo oo u fulinaya maadaama qof dhagaysanaya banaanka heshay haba xumaado wuxuu rabaa noqday haweenyada kaasaa kaaga saaxiib oo kaaga dhow aad iyo aad saa darteed basaysaa waxa waaye gabar baa taqangaar baa tan waayo hooyada kuma fahmaysa abaa kuma fahmaayo hooyada kuma waraysanayso xataa hadda habeenka xoogaa yar banaan kusoo daaday waxa laga asxaabi leedahay kasoo caweyso amadiyo qaar banaanka ula taagan hebel baa la jirtay xaggaa maraysa waa la ii kaa sheegay carar ay guriga ka cararayso ama dhibaatadan ka cararayso ama xakunkan ka cararayso bay darabta ku dhacaysa inay nin libaaxa afka u gashay hadhow gur qarsoodiya gasho waan gartay sida marka hooyooyinka qayb ka yihiin waalidku weliba qayb buu ka yahay sababtoo ilmuhu haddaan saaxiib loola noqon xaaladiis laga warhayn waxa waaye waxay yeelanaysaa libaaxyo banaanka iyo waxa weeye ka fulinayo waxay rabaanin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay najmo iminka waxaanu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka waxaan ku weydiinayaa sida loo yareyni karo guurka qarsooniga ah mise qodbasirada si bulshada ay ugu sii faafin dhibaatada intaa ka badan aan laga dhexlin good waxaa lagu yareyn karaa baayo maadaama waxaanu dhibaato ku tahay bulshada oo dhan oo waxa waaye jiilal badan curyaamisay kow in guriga laga bilaabo maadaama noloshu saddex waa kow guriga laba deegaanka iyo saddex oo waxa waaye iskuulada ah marka laga yimaado marka gabadha waxa waaye qofkan gaaro xaalad guur ku jira tahay kow in guriga laga bilaabo wacyigelin maamul waalidka la siiyo oo la dhaho ilmaha gurka u fududeeyay oo haddii gabadhaadu kuu keento nin mas-uuliyad qaadi kara diin haysta ha oran qabiilkan waxa waaye isma guursano kuma dhacdo maba jeclaan karto maadaaba waxa waaye waxaa samayn kara haddii kala bili wey banaankii ku dhiciyo wiilkii qabiilka ku diiday sida qarini sababto way ogtahay inaa waxaa ku dhahayso marka in waalidku waxa weeye ilmaha guurka u fududeeyaan
caruurta guurka u fududeeyaan oo qabiilka iyo waxaas waxa weeyaan lagu xujeyn oo la faquuqin oo waxa weeye la oramaadaaba guur gaaray 20 sano jirta see guurkan waxa waaye Aisha rasuulka sallallahu alayhi wasallam Aisha maxaa lagu guursay 9 sano soo maaha gabadha muslimadda haddii qaangaarto waxa waaye guurkeeda banaan marka in la dhaho waxa weeye 20 sano jirta guur maadaaba gaarin ma yar baaba tahay way qarsan isleedahay waxa weeye ama lagu dhahaa guur maada gaarin iyadoo waxbarasho ku jira in la imaanaysa waxa la dhahayaa maba gaarin waxbarasho ku jira maadaaba guur gaaraba marka sida waxyaalahaas marka waalidku inay ilmaha waxyaalaha u fiirin laakiin haddii ninka waxa weeye shuruudii guurka uu buuxiyo waxa weeye caruurta guurka loo fududeeyo gabar iyo wiilba labo in dhalinyarada laftirkooda la wacyi geliyo waliba si gaar ah gabdhaha yare laga wacyi geliyo haddii khatartan ku dhacaan dhibaatada ay dhaxli karaan waxa dhibaato ah kasoo sheekeynay inay dhaxli karaan laga wacyi geliyo maadaama qofka lagu dhaho waxa weeye dabka haddaa ku istaagto wuu ku gubi duu dareemaya waa wax looga sheekeeyay haddaanan ba ogeyn dabka waa ku dhacaysaa marka haddii gabdhaha laga wacyi geliyo khatarta ay leedahay khudbasiradu waxaa malayna way yaraanaysaa sidoo kale culimadu masaajidada jimacada khudbadaadka ugu daraan guurka saxda ama sawaadka saxda diinta islaamka sharciyeysay u baahan yihiin muslimiintu inay ku guursadaan iyo kan loo baahan yahay in dadku ka fogaadaan khudbasirada waxaa dhihi karnaa culimada waalidka iyo wacyigelinta gabdhaha kulli ka qayb qaadan ka dhawaan yareyn ka dhaa waan gartay ugu dambeyn baaq nooca ayaad u diri lahayd gabadhaha Soomaaliyeed ee ku jira guurka qarsoon iyo waliba kuwa iminka doonayaan in ay sameeyaan arrinkaasi labaynu kala qaadayna baayoy gabdhaha hadda ku jira ayagu waa xaalad ay ku dhex jiraan kow waxaan dhihi karnaa gabdhahaas hadda ku jira inay la tashtaan culimada iyo dadka aqoonta u leh diinta maadaama waxa weeye wax kasta ay leeyihiin culimo loo daba fariisto marka in la tashtaan culimada iyo dadka aqoonta u leh diinta maadaama qofku ku dhacay arrinta xataa wax laga yaabaa inuu waaga garanayna waxa kan waxa weeye khalad tahay diintu ogolayn laga badhacsi waxa weeyna fiican tahay maadaama laga yaabana yaray marka in culimada u tagto ama wacdi masaajidada tagto tiraado tiradigaas ku dhacay waxa weeye maxaa waxa weeye samayn kara iyaga insha Allah subhanahu wa ta'ala waxa weeye insha Allah waxa weeye wada saxaad tusaya gabdhaha waxa weeye hadda samaynayana kow waxa aad samaynayso inay qudbasirata horta baar waxa baartaa baayo qudbasiray maxaa ahayd kow laba waxa baarta oo iska ilaalisa baa intaan qudbasirada ku dhicin diintu maxay ka qabtaa qudbasirada maadaama waxa weeye diin islaam aynu ku dhaqmayno oo waxyaalaha aan loo ogolayn waxa weeye ay tahay inaynu ka leexano kow baar qudbasiradan lagu macaanay laga sheekaynayo diinta islaamku maxay ka qabtaa dhibaatada ay leedahay haddaad ku dhacdo maxaa wajihi kartaa bulshada dhibaatada inta leeba ka soo gaari kartaa ilmaha aad dhasho maxaa ku dhici kara waxa way cawaaqib xumada ka dhalanaysa inaad baarto oo diraasayso iyada markaas arkaysa inaad ka hor istaagto waan gartay marka taas ayaan dhihi karaa waan gartay Najmo Axmed Xuseen aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan oo aad igala qayb qaatay barnaamijka waa hagaaga dhageystayaal halkaasina waxaan uga soo laabanayaa barnaamijka arrimaha haweenka iyo waliba khudbasirada barnaamijkana waxaa kaalin weyn igala qayb qaadanaysay dhanka iyo waliba qadka telefoonka Najma Axmed Xuseen oo ah macalimad isla markaana ah ganacsato ku nool dhankaasi waliba Soomaaliya aad iyo aad u mahadsantahay sida quruxda badan oo igala qayb qaatay dhageystayaal tan iyo intaanu dib dambe ku kulmi doono waxaan inkiiga tagayaa anigoo ah Sumaya Nuur Lacog sidaas iyo amaane alle waxaan u hayaa abaal haday intay jirtee haween karabow ka dhow adduun iyada hawlku culus habarqabe hoojin kara hoostiisa rabow hadhigin habarqabe hoojin kara hoostiisa rabow hadhigin aamin الله هديك